Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada wararka Soomaalida ee Bakaal Media. Qodobada wararka maanta aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta oo soo jeediyey tallaabo ay doonayaan in la qaado kadib muddo kororsigii farmaajo. James Swan oo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed. Mareykanka oo xadgudubyo culus ku eedeeyay dowladda federaalka. Ciidamada danab oo howlgal ku laayay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab. Maamul goboleedyada dalka oo ku kala qaybsan muddo kordhinta loo sameeyey farmaajo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegeysan doontaan wararka Soomaalida ee Bakaal Media. U tala garooba wararkii iyo faahfaahsan. Aan ku bilaabnay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa si adag uga hadlay xaaladda cusub ee dalku galay, gaar ahaan muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaaliya. Ugu horeyn, qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in go-aanka ka soo baxay golaha shacabka ee muddo kordhinta lagu sameeyey hay-adaha dowladda uu yahay mid sharci darro ah, maadaama uu dhammaaday muddo-xileedkoodii oo 4 sano ahaa sida uu ku cad dastuurka. Golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dastuurka dalka iyo shuruucda u taala dalka ay jebiyeen koox yar oo uu hogaaminayay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka. Sidoo kale golaha ayaa ku baaqay ummadda Soomaaliyeed in meel looga soo wada jeesto waxa ay ugu yeereen kalitalisnimo dalka lagu burburinayo, sida ay hadalka u dhigeen. Ugu dambeyn, musharaxiinta ayaa qoraalkoodii kusoo hadal qaaday tallaabadii uu qaaday taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John, iyaga oo sheegay inuu iska diiday qaadashada amarro gurracan oo lagu burburinayo dalka Soomaaliyeed. James Swan oo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Swan, oo warar qoraal ah soo saaray ayaa hambalyo ku aadan bisha barakeysan ee Ramadaan u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Swan oo ku hadlayay magaca bahda qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la isku naxariisto, sidoo kalena la caawiyo dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha dalka. Waxa uu intaasi sii raaciyay bisha Ramadaan ee sanadkan ayaa bilatay iyadoo dadka Soomaaliyeed dib u bilaabayaan soo celinta xiriirka ku qotoma qiyaamka soo jireenka ah ee wadajirka, isu dulqaadashada iyo is-cafinta iyo dib u heshiisiinta, taas oo rajaynayo buu yidhi inay sidoo kale hagi doonto madaxda Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, Swan ayaa u rajeeyay dadka Soomaaliyeed nabad si loogu gudbo marxaladda adag ee lagu guda jiro, islamarkaasina loo baahan yahay midnimo. Hagaag Bakaal Media ayaad weli naga dhageysanaysaan. Qodobo dhowr ah ayaana soo socda. Mareykanka oo xadgudubyo culus ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, waaxdeedii dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ee kuna saabsan xaaladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kacday falal wax u dhimaya dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka. Qoraalka oo ah mid dheer ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay ku kacday falal ka baxsan bini'aadanimada sida xarig sharci darro ah, dad gacanteeda lagu waayay, diidmada isu-soo-baxyada shacabka, baaris la'aan iyo arrimo kale oo ka hor imaanaya xeerarka caalamiga ah. Warbixintan ay wasaaradda qortay waxaa lagu sheegay in 60% dilalka dadka rayidka loo geystay ee ka dhacay Soomaaliya intii u dhaxaysay November 2019 ilaa Agost 2020 ay ka dambeeyeen Al-Shabaab. Waxaana intaasi sii dheer in isla waqtigaasi in dowladda ay riday 32 xukun oo dil ah, taas oo maxkamadda amartay. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda ay caburisay warbaahinta, waxaana si gaar ah loogu xusay wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuuja oo la haystay intii u dhaxaysay February ilaa Agoosto 2020 kadib markii lagu eedeeyay Al-Shabaabnimo. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa lagu eedeeyay inaysan wax ixtiraam ah siinin sharciyada xarigga, sida inaysan haysan karin qof aysan u haysan warqadda xiritaan. Iyadoo ay taasi og yihiin, haddana wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sheegtay inay iska indhatirtay. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in dadka loo soo qabto arrimaha siyaasadeed ay badankood sharciga la marin, waxayna tusaale usoo qaateen Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo tan iyo 2018 xiran iyadoo aan wax maxkamad ah la soo taagin. Intaas kaliya loogama harin eedaha dowladda ee saraakiil sare ayaa lagu eedeeyay inay magacoodii iyo magaca dowladda dad ugu barakiciyeen goobo ay deganaayeen ama ay xoog kaga qaateen. Arrimaha warbaahinta oo aad looga dhaliilay dowladda ayaa waxaa la sheegay inay guulo ka keeni weysay baaritaanada ay ku sameeyeen dalalkii loo geystay Cabdiweli Cali Xasan, Maxamed Sahal Cumar iyo Hodan Naanley. Waxaana intaasi dheer in xorriyadda hadalka ay caburiyeen lagu eedeeyay, sida xaraggii ay u geysteen Cabdicasiis Gurbiye oo ka tirsanaa warbaahinta Goobjoog.
ugu dambeyntii dowladda waxaa si weyn looga dhiilay inay diiday soo bax weyn oo ay abaabuleen mucaaradka taas oo ka hor imaanayso dastuurka. Waxaana jirta sidoo kale in guddiga maaliyadda lagu eedeeyey inay jiraan hay-ado si xisaab la-aan ah ay qandaraasyo ula gashay dowladda. Maamul goboleedyada dalka ayaa ku kala qaybsan muddo kordhinta loo sameeyey farmaajo. Maamul goboleedyada Galmudug, Puntland iyo Jubbaland ayaa qaadacay muddo kordhinta dowladda federaalka, halka Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir ay soo dhaweeyeen go'aankii baarlamaanka. Madaxtooyada Puntland ayaa waxa uu hadlay Jaamac Yuusuf Dabarani oo qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitterka ku yiri dowladda Puntland waxay ka xun tahay wixii maanta dhacay, waxayna ahayd tillaabo sharci darro ah oo uu qaaday aqalka hoose ee baarlamaanka ee waqtigiisu dhammaaday. Puntland dib ayay ummadda Soomaaliyeed ula soo wadaagi doontaa mowqifkeedii la xiriira wixii shalay dhacay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Jaamac Dabarani. Sidoo kale Jubbaland ayaa sheegtay in wixii shalay dhacay golaha shacabka ay ahaayeen sharci darro, ayna dib ugu celinayso hanaanka geedi socodka iyo dib u dhiska dowladnimada dalka. Dhanka kale, madaxweynayaasha Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qoraal wadajir ay soo saareen ku sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka golaha shacabka ee shalay ka qaateen arrimaha doorashooyinka qaranka, kaasoo dalka dib ugu celinayo doorasho qof iyo cod. Waa hagaag faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgal ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danab ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa si gaar ah waxaa ugu dhacay deegaanka Gamboole oo qiyaas ahaan 48 kilomitir u jira magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle. Sarkaal u hadlay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa 24 xubnood oo ka tirsanaa dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga, loogana hortagay weerarada kooxda Al-Shabaab ee ka abaabulaan halkaasi. Dhanka kale, ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay gulaha ka sheeganayaan dowladda. Si kastaba, ciidamada dowladda ayaa shalay geligii dambe dib ugu soo baxay deegaanka Gamboole oo ay la wareegeen saacado kooban, waxaana xaaladdu ay tahay mid degan. Waa hagaag wararkii Bakaal Media, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tan intaynu dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.